السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كسو دوادا مقال كلا oo xiiso badan waxaan kaga hadli doonaa afar shirkadood oo aad dabcan garanayso. waxaan idin la wadaagi doonaa macluumaadyo kooban oo ku saabsan shirkadahaasi. waxaan ku bilaabi doonaa shirkadda caanka ah ee Facebook. waxaan rajaynayaa inaad Facebook leedahay aad hadda nagala socoto ama aad waxa weeye marar badan aragtidada isticmaalaya. shirkadda Facebook waa mid ka mid ah shirkadaha ugu caansan ee bulshadu ku wada xidhiidho. waxaa la aasaasay sanadkii 2004 waxaana aasaasay Mark Zuckerberg oo ah wiil 35 jir Amerikaan ah. waxa uuna kaalinta shanaad kaga jira dadka ugu hantida badan dunida. maalkiisa ayaa sanadka 2019 waxa uu gaarayaa ilaa $70 bilyan. shirkadda labaad ee soo qaadan doona asbuucan waxa weeye shirkadda Twitter. Twitterku waa bar ay ku wada xidhiidho bulshadu oo laga leeyahay dalka Mareykanka waxaana la aasaasay 21 Maarso 2006. waxa waayada hore loo ogolaa isticmaalayaasha inay ku qoraan ilaa 140 eray ama xaraf. sanadii 2017 ayaa la kordhiyay lagana dhigay 280 xaraf. Google. shirkadda Google waa mid ka mid ah afarta shirkadood ee tiknoolajiyadeed ee dunida ugu weyn kuwaasi oo kala ah Amazon, Apple, Facebook iyo Google. waxaa la aasaasay sanadkii 1998 waxaana aasaasay Larry Page iyo Sergey Brin. Google waxa ay leedahay mashiinka ugu weyn ee dunida waxbaara. sidoo kalena waxa ay leedahay qaybo kale oo badan oo ay ka mid yihiin soo saaridda telefoonada. Apple. shirkadda Apple waa shirkad Amerikaan iyaduna waana shirkadaha tiknoolajiyadda ee dunida ugu caansan waxayna caan ku tahay soo saaridda qalabka elektarooniga sida telefoonada gacanta iyo kombiyuutarada iyo waliba qalab kale oo aad u tiro badan oo ayna halkan ku soo koobi karin. waxaa la aasaasay sanadkii 1976 bishii afraad kowdeed waxa ayna sanadkan 2019 ka jirsatay 43 sano. shirkadda Apple waxa ay dunida ku leedahay in ka badan 500 oo xarumood kuwaasi oo badeecadaha siiya dalalka ay ku yaalaan. sanadii 2018 ayaa xaruntii ugu horeysay ka furatay Soomaaliya waxa ayna ku leedahay magaalada Muqdisho. daawade waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka fahantay macluumaadiyada la xiriira shirkadahan si aad muuqaaladan iyo kuwa kale oo xiiso badan ba u hesho. fadlan subscribe channelka la jaanqaad dunida. mahadsanidin.